abaalmarin lagu macneeyey tii ugu qaalisanayd ee shakhsi uu ka helo ciyaaraha kubadda cagta dunida ayuu heli doonaa mid kasta oo ka mid ah ciyaaryahanada xulka kubadda cagta Sacuudiga ee talaadadii wacdaraha ku dhigay xidigaha Argentin ee uu ka mid yahay laacibka 7 mar ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or ee loo saadaalinayay in sanadkan uu ku hogaamiyo dalkiisa koobka adduunka waa Lionel Messi. dhaxal sugaha boqortooyada ahna ra'iisul wasaaraha Sacuudiga Mohammed bin Salman oo ay ka muuqato mucaashiqnimada kubadda cagta ayaa guushi ciyaartoyda dalkiisa matalaysay ay u soo hooyeen Sacuudiga iyo dunida Carabta wuxuu siiyay mid kasta oo ka mid ah $500,000 iyo baabuur nooca raaxada ah ee loo yaqaan Rolls Royce oo ka mid ah gawaarida dunida ugu qaalisan taasi oo ah dhiirigelin iyo inay u qalmaan hadiyadaasi. ciyaaryahanada Sacuudiga ee talaadadii soo bandhigay qaab ciyaareedka cabsi la'aanta ah iyo inaanay ka gaban Messi iyo ciidankiisa oo kulankaasi ka hor aan laga badin 36 ciyaar oo ay ciyaareen ayaa imika yoolkooda waxa uu yahay inay u soo baxaan wareegga 16. xulka Sacuudiga ayaa galabta la ciyaaraya ciyaaryahanada Poland oo ka mid yahay laacibkii hore kooxda Bayern Munich imikana maaliyadda u xirta kooxda Barcelona Robert Lewandowski kuwaasi oo ciyaartii ugu dambeysay ee Mexico la ciyaareen barbardhac la galay. xidigaha Sacuudiga ee sida lama filaanka uga badiyay Argentin ayaa guushooda lagu tilmaamay mid ka mid ah guulaha taariikhiga ah ee laga diiwaan geliyay koobka adduunka. Mohammed bin Salman oo 37 sano jir ah ayaa joogay xafladii furitaanka ee koobka adduunka kadib markii casuumaad uu ka helay dowladda Qatar iyo xiriirka ciyaaraha dunida ee FIFA taasi oo loo fasirtay in wiilka dhaxalka iska leh uu yahay nin kubadda cagta u heelan. guusha Sacuudiga ay ka gaareen Argentin waxay keentay xitaa in dalka Sacuudiga maalinimadii Arbacada Mohammed bin Salman uu ka dhigay fasax oo aan shaqo iyo waxbarasho la aadin si loogu dabaaldego guushan aan la filayn. ciyaartii talaadada Sacuudiga waxaa gool kala hormartay Argentin kadib markii gool kulaad uu u dhaliyay Messi waxaase bilowgii qaybtii labaad ee ciyaarta gool barbardhaca Sacuudiga u dhaliyay Al-Jahri taasi oo siisay xidigaha boqortooyada Carabta niyad ay qalbiga kaga jabin karaan laacibiinta Argentin ee dunida caanka ka ah. waxaase Argentin qalbi jab iyo maroro dilaac oo ku habsaday daqiiqadii 53 markaas oo Aldosari oo dabka saaray difaacii Argentin iyo goolhaya Martinez ciyaartiina oo ka dhigay 2-1 sidaasna ay guushii ku raacday Sacuudiga. Argentin iyo wiilkooda dahabiga Messi ayaa geed dheer iyo mid gaaban u fuulay sidii goolka Sacuudiga iskaga soo gudi lahaayeen oo ugu yaran barbardhac ciyaarta ay ugu heli lahaayeen. laakiin ciyaaryahanada Sacuudiga ayaa sibtada u qabtay ciyaartiina ku soo afmeeray guul taariikhi ah oo ay ku bilowdeen ciyaaraha adduunka ee Qatar ka socda. Sacuudiga ayaa u soo baxaya wareegga 16 maanta haddii ay guul ka gaaraan Poland oo iyaga qudooda guul ay gaaraan ay ku xiran tahay rajada wareegga 16.